kulantii haboonda wadayaal halkan waa Raatan TV ku soo dhawaada war wixii aanu idinkaga haynay dhulka ay Soomaalidu degtay iyo caalamka intiisa kale qodobada ugu waaweyn ee aad wararkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya dowladda Masar oo ciidamo ka dejinaysa degmada Balad Xawe ee gobolkaasi Gedo iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo halkaas laga dareemayo ciidamada Jubbaland oo isku dhiibay kuba Itoobiya iyo sidoo kale abaabul xoogan oo ka soconaya halkaasi buushino culus oo ka soconaya gudaha magaalada Nairobi ee caasimada wadankaasi Kenya iyo ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo looga soo horjeedo macluumaadkii ugu dambeeyay ee umuurahaasi ku saabsan ayaanu idinla wadaagi doonaa ee dawadaday tahay markaaga kuugu horeysay ee soo booqato halkan subscribe saar like muuqaalkan waad ku maasan tahay soo booqashadaada aanu si ambaqaadno wararka la helayo ayaa waxa ay ku nuuxnuuxsanayaan in ciidamadii ugu badnaa ee ka socda dowladda wadankaasi Masaarida ay ku soo wajahayeen gudaha magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya toddobaadkan gudaheeda ciidamadan ayaa la tilmaamayaa inay u sii gudbayaan dhanka iyo gobolka Gedo si markaas ay farsamo uga dhigtaan degmooyinka Balad Xawe iyo Doolo wararka ayaa waxa intaas ku sii darayaan in guud ahaanba hoosta laga xariiqay qorshaha imaatinka ciidamadaasi isla markaana wasaaradda difaaca dowladda wadankaasi Masar ay guud ahaanba shaacisay in ciidamadaasi ay imaanayaan gudaha Soomaaliya ayna ka qayb qaadanayaan howlgalka amni xaqiijinta ee Soomaaliya ee ee dhawaan ka curtay Soomaaliya waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba ciidamadan ay qabaan tababarada noocyadooda kala duwan waxaana warar qaar la helayo ay tilmaamayaan in guud ahaanba dowladda Soomaaliya ay diyaarisay kuba kale oo ka barbar dagaalamaya lana galaya dagaal xoogan ciidamada Jubbaland ee halkaas ku sugan si guud ahaanba amniga gobolkaasi looga soo celiyo gacanta dowladda xilli ay dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso in guud ahaanba ay dhaqan geliso qorshaha doorasho ay halkaasi uga ergelinaysa isla markaana Axmed Madoobe ay uga adkaanayso waxaa la tilmaamayaa in ciidamadan tir ahaan ay gaarayaan ilaa iyo 2,000 oo askari oo ciidamo Masaari ah kuwaasi oo tababaro kala duwan qaba waxaana la tilmaamayaa inay ku jiraan saraakiil iyo macallimiin si weyn uga qayb qaadanaya tababar qaybooda kala duwan ee ciidamada qalabka sida la siinayo waxaana wararka qaar ee la helayo ay tilmaamayaan in saacadaha soo aadan ay soo gaarayaan gudaha caasimada Muqdisho iyagoona ku hakanaynin waxaana wararku ay tilmaamayaan inay sii gaarayaan magaalada Balad Xawe halkaasi oo ay ka degayaan xerooyinka iyo fariisin muhiim ah oo ciidamada dowladdu ay halkaasi ku leeyihiin waxaa lagu wargeliyay ciidamadaasi inay xaqiijiyaan amniga xuduudaha Kenya iyo Itoobiya ay la wadaagaan dowladda Soomaaliya waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba tallaabadaasi ay hergashay ciidamada Jubbaland ee halkaasi ku sugan waxaa la tilmaamayaa in guud ahaanba ay u gacan haatisay dowladda wadankaasi Itoobiya ayna gudaha u galeen wadankaasi deegaanka lagu magacaabo Suuftu ayaa la tilmaamayaa in xero ay ka sameysteen halkaasina waxaa la tilmaamayaa in ciidamo kale oo dheeraad ah looga soo darayo si ay u ambaqaadaan wajiga labaad ee dagaalka ay uga hortagayaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxaana sidoo kale guud ahaanba halkaasi ka dhaqan galaya qorshaha ay Jubbaland mar kale ciidamo ay halkaasi uga soo abaabulaysa Maxamuud Sayid Aadan ayaana ku sugan deegaanka Suuftu waxaana wararka la helayo ay tilmaamayaan in la sii ambaqaadayo guud ahaanba howlgallada ka dhanka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee Jubbaland ay wado warar kale oo la helayo ayaa tilmaamaya in halkaasi xero looga sameeyay ciidamada Jubbaland isla markaana ay qaadanayaan tababarada noocyadooda kala duwan si ay markaasi isaga xoojiyaan dagaalka ka dhanka ah dowladda Soomaaliya Itoobiya ayaana la tilmaamaya in qorshahaasi ay guda galayso waxaana maalgelinaya isu taga Imaaraadka Carabta oo lacag tirabeela ku bixinaya ilaa iyo 2,000 oo askari ayaa la tilmaamaya in Jubbaland loo tababarayo kuwaasi oo la geenayo gobolka Gedo waxaa la tilmaamaya talaabadan inay xoogaysatay ka gadal markii dowladda wadankaasi Imaaraadka Carabta madaxweynaha uu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe isla markaana uu ku wargeliyay guud ahaanba in uu talaabadan gudagalo waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba ay dhaqan gashay ciidamada halkaasi tagayna waxaa la tilmaamayaa in guud ahaanba tababaro ay halkaasi ku qaadanayaan Masaarida iyo sidoo kale Itoobiyaanku oo si weyn isu nacban isla markaana isku haya bixireenka wabiga Nile ayaa la tilmaamayaa hadda in mar kale ay isku wajahayaan gudaha Soomaaliyana waxa isugu keentay hal howlgal oo gudaha Soomaaliya ka howlgalaya waa howlgal ka dhawaan curadka ee AUSOM la yiraahdo kaasi oo guud ahaanba wadamo dhowr ah oo Afrikaanka ay ka qayb qaadanayaan waxaana la tilmaamayaa in Masar iyo sidoo kale dowladda wadankaasi Itoobiya ay mar kale isku wajihi karaan gudaha Soomaaliya
halka masaaridu ay fariisimo ka samaysanayaan gobolka Gedo oo ay ku sugan yihiin ciidamada Itoobiyaan ah. Waana tallaabo kale oo maangal ka dhigi karta inay isku footaraan gudaha Soomaaliya. Axmed Maxamed Islaam Madoobe hogaamiyaha maamulka Jubbaland ayaa isagu waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee caasimada wadankaasi Kenya. Waxa uu halkaasi ka abaabulaya mooshinno culus oo markaasi guud ahaanba looga hortagayo dhaqdhaqaaqyada dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wado gobolka Gedo iyo guud ahaanba in xilka xayuubin lagu sameeyo wasiirka koobaad ee xukuumadda Soomaaliya Xamza Cabdi Barre. Waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba tallaabadaasi uu gudagalayo Axmed Madoobe. Lacaga tiro beel oo ka yimid dhanka Imaaraadka Carabta ayaa la tilmaamayaa in qorshahan lagu fulinayo, waxaana guud ahaanba la tilmaamayaa in uu la tagay gudaha magaalada Nairobi, isla markaana waxaa la tilmaamayaa in lagu dhaqangelinayo qorshaha ay doonaysa Imaaraadka ee in talada looga xayriyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Xamza Cabdi Barre. xildhibaanadii ugu badnaa ayaana waxa ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Nairobi ee caasimada wadankaasi Kenya, waxaana ay halkaasi ka wadaan qabashada mooshinno xoogan oo halkaasi laga abaabulayo lacaga tiro beel ah iyaguna Imaaraadka arrintaasi ku bixinaya. Waxaana hormuud uga ah qorshahaasi Axmed Madoobe iyo saraakiil kale oo si weyn uga soo horjeeda xukuumadda talada joogta. wararka waxa ay tilmaamayaan in maalmihii ugu dambeeyay si weyn ay isu urursanayeen xildhibaanadan. Haddana waxaa la tilmaamayaa in mooshinkan uu xoogeystay, waxaana Axmed Madoobe iyo sidoo kale saraakiil kale oo ku sugan gudaha magaalada Nairobi ay si weyn u abaabulayaan qorshahan. xildhibaan Sanyare iyo saraakiil kale ayaana hogaaminaya. waxaana la tilmaamayaa in si weyn ay maangal u tahay saacadaha soo aadan in guud ahaanba mooshinkaasi uu xoogeysto, waxayna sugayaan fadhiga baarlamanka oo dhowaan furmaya si markaasi loo horgeeyo soo jeedinta xilka xayuubinta wasiirka koobaad ee xukuumadda Xamza Cabdi Barre. waxaana la tilmaamayaa in si weyn tallaabadaasi ay uga wada shaqaynayaan Axmed Madoobe iyo Imaaraadka Carabta. adduun lacageed oo tiro beel ayuuna Imaaraadka qorshahaasi ku bixinaya. walow ra-iisul wasaare Xamza Cabdi Barre dhowaan uu ka gacan taagtay guud ahaanba qorshaha gobolka Gedo, isla markaana ay si weyn isugu qabteen madaxweynaha talada jooga, haddana waxaa la tilmaamayaa in si weyn uu u danaynayo Xamza in xilka uu ka xayuubiyo Madoobe. waxaana la tilmaamayaa in uu isugu geynayo xildhibaanada taabacsan maamulkiisa iyo sidoo kale rabitaankiisa magaalada Nairobi, isla markaana halkaasi ay ka abaabulayaan qorshaha xilka xayuubinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda Xamza Cabdi Barre, kaasi uu dalka ka maqan isla markaana tagay gudaha wadankaasi Jayna, halkaasi oo la tilmaamayo inuu safar shaqo uu ku tagay. waxaana guud ahaanba uusan dhag jalaq u siinayn waxaa ka soconaya magaalada Nairobi, balse Madoobe waxaa la tilmaamayaa in si weyn ay uga go-an tahay xilka xayuubin lagu sameeyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Xamza Cabdi Barre, waxaana kala shaqaynaya saraakiil muhiima. joogitaanka ciidamada Itoobiyaanka ee gudaha gobolkaasi Gedo iyo sidoo kale ciidamadan cusub ee la keenayo gudaha gobolkaasi ee ka imanaya dhanka iyo dowladda wadankaasi Masaarida ayaa la tilmaamayaa inay tahay halis xoogan oo gobolka kusoo food leh. waxaana la tilmaamayaa dowladdu in arrintaasi aysan u muuqan, isla markaana falanqeeyayaashu waxa ay ka digayaan tallaabada ciidamada halkaasi la isugu geynayo lama sooga xiisada halkaasi ka taaganayo halka ay saldhiga doonto. guud ahaan intaas ayaan kusoo meerayaa daawadayaal, tan iyo kulan dambe nabadeen.